اوكي سو دواده caawa cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay laba mawduuc mawduucyadaas oo kale ah expectational order flow iyo if loo soo gaabay iyo if hadii aad waxa loo soo gaabay expectational order flow iyo who's in control marka kood waxaan ku bilaabaynaa kanaan ku bilaabaynaa tusaalayaal arkeena chartska aadayna kadib u soo laabanayna who's in control marka expectational order flow aan ku bilaabno waxaan rajeynaa waa erey yar qorta expectational order flow marka laga hadlayo waa suuq dhanka u socdo suuqan maxaa laga rajeynayaa labay kala yihiin waxaa jira laba erayo si aad loo isticmaalo expectational order flow iyo order flow waa suuqa hadda wuxuu ku socdo waa wax la isku khilaafi kara maahan waa wuxuu hadda suuq order flow suuqa hadda muxuu ku socdaa ma supply demand ma ku socdaa mise expectational order flow waxa filanaysa maxaa filanay waa suuqan waxaan arkay higher low u sameeyay waxaa filana hadda inuu saas sii sameeyo filana laakiin marka laga hadlayo order flow waa wax dhacay waa u jeed indhahaaga wax u jeedaan waa wax la isku khilaafi karin laakiin expectation ereyga expectation english waxa laga soo gaabiyay filasho order flowga fila doontaa wax wuxuu u sameyn doono waa very powerful area expectational order marka la isticmaalayo area expectational order flow waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan istiraatiijiyadan isticmaalayno waa very powerful waxaan dhihi lahaa waa structure markaan ka hadlayna structure waxa ugu muhiimsan waa inaad expectational order flow iska fiirsid sidoo kale expectational order flow waxay shaqeysaa oo si fiican u shaqeysaa markaad tahay qof broad trend waxa ka wadaa qof continuation ku trade gareeyo oo suuqa markuu higher high semester higher low markaad trade ka qaadanaysid waa very powerful oo markaad tahay qof broad trend trendiga qofka la socda markaad tahay sidoo kale expectational order flow waxay shaqeysaa marka lagu daro who's in control iyo liquidity saddexdaas marka isku qabatid waa the best marka haddaad isku qabatid expectational order flow plus who's in control plus liquidity waa biggest probability maxaa kaloo ka hadli sidoo kale lower time frame markaad joogtid lower time frame maxaa u naqaanaa 1 minute iyo 5 minute iyo 15 minute lower time frame waa la karaa markaad joogtid lower time frame waxaa arki doontaa expectational order flow inuu marar badan uu fail garow doono waxaa ka mid ah waxaan ka wadaa tusaale ahaan suuqa haddaad rajeynaysay inuu higher low u joogo inuu higher high sameeyo waxaa arki doontaa inuu saan iska soo sameeyo marka lower time frame waxaa dhici doona a lot of failures oo marar badan waa fail garow doona expectational order flow marka taas micnaheedu waxaa waaye expectational order flow waxay shaqeysaa marka lagu qabto time frameyada waaweyn 4 hour iyo 1 day iyo waa mararka waqtiyada badana waxay shaqeysaa marka la isku qabto time frameyada waaweyn ay shaqeysaa sida 4 hour 15 minute waxaa arki doontaa inuu order flow si fiican u raaci doono expectational order flow sidoo kale ereyga George hadda aragtid tusaale ahaan expectation order flowga waa san ereyga George aniga waxaan isticmaalaa the first sign of expectation order flow inuu fail garow doono George ayaa ku cadeey doona hadda aragtid George trade kama qaadano laakiin George waxa cadeey doona expectation order flow inuu fail garow doono waa the first sign of inuu expectation order flow uu fail garow doono sidoo kale waxaa jiro erey kale dhahayo mar allaale markii lagu joogo supply zone marka lagu joogo expectation order flow uu yahay bearish waxaan ka wadaa suuqa hoos u socdaa sidoo kale supply zone waa lagu joogaa supply zone lagu joogaa expectation order flow waa suuqa inuu hoos u socdo arjeynaysa waa entry-da ugu fiican expectation order flow waxa caddeyn in hoos loo socdo sidoo kale waxaa joognaa meel supply zone waa one of the best entries maxaan kale waxaan soo qoran waa wax order flow iyo waa ka hadalin order flow waxa suuqaad ka dhacay tusaalahan suuqa markuu xaga maraya order flow waxa la lahaa wuxuu sameeyay sidoo kale expectation order flow waxa la lahaa codka iska xir qofka hadda soo galay sidoo kale expectation order flow waxa la lahaa waxaad rajeynaysaa la lahaa taas waa ka tagayna markaad sawirka arkayna sidoo u dhaca expectation order flow waxa dhacay higher low hadda mar allaal markaa aragtid higher low markaa aragtid maxaa filanaysaa what's your expectationka waxaa waaye
suuqa inuu hoos inta ka soo hoos marin kan inuu ka soo hoos marin waayo hadda aragtid laga soo hoos maray expectation order flow wuu fail garoobay laakiin hadda mar allaala markaa aragtid in expectational order flow uu xushmeynaya higher low u dambeeya hadduu xushmeynaya order flowga uu saxan yahay kadib maxaa dhici doona anada saana socona haddana maxaa expectation order flow order waxaa rajeynaysaa in higher lowga lagu xushmeeyo higher higher la jibiya rajeynaysaa anada order flow oo lagu xushmeeyo expectation order flow waa la xushmeeyay haddana maxaa dhacay higher low waa dhacay the first sign of expectation order flow uu fail garoobo maxaa deynaya area church meesha maxaa ka dhacay church ka dhacay church waa waxa ugu horeysa ku sheegaya expectation order flow uu fail garoobi doonaa sidoo kalena waxaa dhici doona another expectation order flow marka hadda waxaa arkaysaa meeshan supply zone ahead suuqa hal mar oo ka soo laabtay markuu soo laabashadiisna muusan jibinin demand zone mise higher low u dambeeyay muusan jibinin order flow waa la xishmeeyey haddana another order flow expectation order marka the first sign of church waxaa caddeynaya hadda mar allaal marka arag church waa inaad badashaan order flowgaaga hadda waxaan dhahaa waxaa dhacay church dhacay expectation order flowga wuxuu noqonaa inuu suuqa hoos u sii socdo marka expectation order flow waxaas weyn waa wax kaliya higher low la xushmeynaya waa very powerful kaliya waxa ogtahay in laga hadla swing internal structure in laga hadla ogtahay laakiin mar allaala markaa baragtid expectation order flow aad suuqa meesha u raaci lahayd tusaalahaan mar allaala markaa church aragtid hadda aragtid suuqan kama rajeed doontid inuu sii wato higher highgiisi ma ahan waa inaad fikirtaa aad dhahayd order flowga wuxuu sameeyey church marka expectation maxaa rajeynaya waxaa rajeynaya inuu suuqan hoos u socdo doono maxaa yeelay higher low u dambeeya la jibiyey taas waa markay tahay waa caadi markay tahay sidoo kale waxaa jiro expectation order flow oo correction si correction ku dhici doono tii hadda waxay ahayd waa caadi tusaalahaan hadda arid correction higher low higher highgan lama rabo inuu jibiyo higher lowga inuu jibiyo lama rabo wuxuu sameeyey waa imaada waa jibiyey hadda kan maxaa ka filina higher lowga waxaa ka filina inuu jibiyo higher highs inuu jibiyo rajeyna muusan jibin ee uu soo laabtay haddana soo laabashadiisa higher low haddana muusan qaadan saana ku socdaa suuqa mar allaala markaa aragtid adiga muhiimad ugu weyn waxaa waaye inaa ish ku haysid higher kana iyaha higher low kana iyaha higher high laakiin lama rabo suuqa asigoo u jabinin higher low iyo higher high iyadoo la jibin inaad dabracdaa aad dhahdaa higher lowga waa kana higher highga waa kana higher may ha dabracin kaliya muhiimad waxaa waaye in lagu jiro range lagu jira rangegaan kale maxaa dhac trade waa qaadan kartaa laba trade aa qaadan kartaa tusaalahaan suuqa waxaa jira meeshan waa demand zone korkaas waa supply zone korkaas waa supply zone hoosaskan maxaa waa demand zone labadaba waxay muujinayaan inay haysashada waa maxay order flow wuxuu sheegaa demand zone waa la xushmeynaya supply zone waa la xushmeynaya labadaba waxay sameynayaan respect markaana kale waxaa sameynaya haddaad trade meeshan ka qaadatid tusaale ahaan buy haddaad buy u qaadatid mar allaala markii xaggaan la gaaro waxaa samaysaa partial waxaa la lahaa full tb ka modo tusaale ahaan lacagta waxay ku socotaa $1 faa'iidada half la bax 500 markii xaggan gaarto 500 la bax markuu soo laabtana break even isla markii break even dhigo isla markii mar allaala markii lagu gaaro supply zone lacagta kala bar la bax maxaa yeelay uu soo laaban doonaa laakiin waxaa ku jirta laakiin haddaad sell u soo gasho sell meeshan haddaad sell ugu soo gasho korkaas haddaad sell ugu soo gasho xaggan wuxuu noqonaa full tb maxaa ka wada wax suuqa ugu tagin hal xab ugu tagin full tb hoostan waxaa ka dhigtaa full tb ka dhig maxaa yeelay waxaa tahay qof counter trade qof oo reversal trade qaadanaya mar allaala markaa reversal trade qaadanaysid higher lowyada waa looga baxaa trade boqolkiiba all waa xiranay laakiin markaa tahay qof continuation ku trade garay lacagta kala bar la bax inta kale iska hayso ilaa sanad dambe iska hayso sanad dambe waa tusaalahaan waa waqti badan hayso marka kaas waxaa waaye expectation order flow wax saas u weyn maahan waa kaliya higher highada iyo higher lowyada lagu xushmeeyo aad isha ku haysaa swing iyo internal hadda waxaa arki doonaa tusaalayaal chartska aadi doonaa kadib waxaa usoo laaban doonaa housing control mawduuca waxaa is barbar dhigi doonaa higher time frame iyo lower time frame tusaale ahaan haddaa aragti dailiga
daily waa lagu xishmaad doonaa expectation order flow okay xaga korkana ka bilaabana suuq muxuu sameeyay higher low sameeyay higher low higher low higher kan weegan waxa laga yaabaa mid kale aan ka tago waxa waaye hadda aragtid in lagu jabiyo fiiq higher low u dambeeyay hadda aragtid in fiiq lagu jabiyo fiiqaas xisaabsan meen ee fiiqaas waa liquidity grab la meelahan liquidity-dan la soo grab gareynaya marka sweep of liquidity mar alaal marka fiiq aragtid aniga waxno fiiqaas xisaabsan meeno kaliya body aragna body closer laakiin week closer waa kaliya waa liquidity grab waxa arki doona isbuuc dambe marka ka hadlayno cashirkeena liquidity marka higher low wajida expectation order flow in la xushmaanayo kana waa time frame waa week waa time frame weyn hadda aragtid one day waa la xushmaanayo laakiin 4 hour waxa arki doontaa 4 hour hadda hal mar qalinkan daciifan ka dhigana isla meeshan saarta waxaan saar doonaa qalinkan daciif ka dhig isla 4 hour ka saaranana 4 hour waxa arki doontaa in waxyaabo badan la jabi doono qalinka asoo noo saarna waxa aadina 4 hour hour waxa arki doontaa inay dhici doonto a lot of qalinka iweene okay 4 hour waa iyadana waa la xushmeynaa laakiin waxa arki doontaa in wax yar la iskhilaafi doono khilaaf yar 4 hour expectation order for iyadoo bullish yahay okay xagan waxa dhacay the first failure expectation order flow the first failure dhacay failure ugu horeeyay oo expectation order flow dhacay laakiin one day wajida one day there was no failure marka expectation order flow waxa la shaqeeyaa time frame waa time frame ka waaweyn yahay waa si fiican u shaqeeyaa marka aadno 15 minutes waxa arki doonaa inay dhici doonto a lot of expectation order flow failure marka expectation order flow waxa ka soo saartaa 4 hour iyo daily-ga maskaxda ku hayso 15 minutes internal iyo swing structure indaha ku hayso hada leg u dambeeya tag doona leg u dambeeyay hadda waxa arkaynaa the last leg wuxuu ismay suuqa lower high gaabkan wax xisaabsanayna lower high marka 4 hour waxa jeedaa in asaas dhacay hadda aad 15 minutes hal mar one day suuqa muxuu ku cadeynaa one day wuxuu ku cadeynaa suuqa inuu yahay down trend oo hoos u socdo oo hadda one day maxaa filanayna inuu suuqa bullback yar sameeyo haddana uu sii wato ilaa ay ka dhacdo in lagu jibiyo lower high u dambeeyay hadda one day markaad joogno xagee lower high noo ahayd qalinka iga tiraan one day hada soo fiiris one day lower high waa kana one day lower high waa kana maalintii lagu jibiyo lower high gaas waxa dhigi doona expectation order flow oo one day wuxuu yahay bullish laakiin hadda la joogo expectation order flow one day waa bearish hoos u socda laakiin one day iyada bearish tahay waxa arki doona 4 hour inay tahay bullish hadda 4 hour ma garanayo isbuuca waxa malan in la jibiyo amalena ay u dambeeyay mar iga tiraan xas isbuuca waxa la jibiyo amalena ay okay waxa u jeedaa 4 hour inuu sameystay church waxa cadeynay the first sign of expectation order flow inuu fail garoobay hadda marka 4 hour waxa sugeena inuu korkiisii wato ilaa lagu sameeyo church laakiin one day wali waxa ku jirnaa bearish hadda 4 hour waxaan bilaabay inuu suuqan hor aadi doono inuu bullish aan bilaabay marka the concept of expectation order flow waa inaad la jaan qaado suuqa structure waxaan dhahnay isbuuca hore waa the most important qofka isticmaalaya support and resistance qofka isticmaalaya meesha kaliya laga sameeyaa forex iyo cryptocurrency meesha kaliya laga sameeyaa waa structure hadda aad bitcoin ninkan xataa maalgashan wuu ogaa karaa jihadiisa meesha u socoto mustaqbalka in la rajaynayo inay 100 kun aado waxaas waa kaliya expectation order flow okay expectation order flow maxaa kale waxyaabo yar yar soo diyaarsaday laakiin waa wax lazy ah wax qorqor oo kale hadda waxa aadaynaa push control expectation order flow meesha ugu tagana push control waxa jira charts yar aan soo diyaarsaday okay chartigan waa loo jeedaa chartigan waxa cadeynaya push control
who's in control concept of who's in control waxa laga wadaa supply zone markuu controlka haayo demand zone kan waxa la rabaa inuu kaliya reaction dhiibo reaction kan lama rabo inuu jabiyo supply zone kas lama rabo hadduu jabiyo reaction kan supply zone demand zone la wareegay maxaa la lahaa control demand zone la wareegay oo hadda maxaa rabaa inuu solar demand zone ka la xishmeeyo supply zone reaction u dhiibo laakiin reaction kas uusan noqon reaction demand zone joogo hal mar sabar yaran ku soo demand zone kan meeshan waa demand zone haddii demand zone tahay meeshan waa demand zone warkaas waa supply zone hadhiin waa break of structure waxa meelaha waxa ka jiro break of structure ayaa ku jiro marka waa concept kaliya kan rabaa marka hadda suuqa markuu joogo demand zone waxa rabaa demand zone ka inuu ka tagaa rabaa laakiin supply zone oo reaction kiisa lama rabo inuu jabiyo lama rabo demand zone ka reaction hadhiibo yes maxaa yeelay every supply zone every demand zone waa inay reaction dhiibaa si ay supply zone ku tahay demand zone ku tahay reaction ka markuu dhibay waxa la rabaa inuu jabiyo isla saas u socdo taas waxay cadeynaa inay demand zone is control soo laabashadiisa demand zone kan uu ha imaado soo laabashadiisa demand zone kan la ha imaado haddana maxaa rajeynaa inuu laabto meeshaas maxaa yeelo supply zone ay yeelo supply zone reaction ha dhiibo laakiin reaction kan mar alla hadda arka reaction kan inuu jabiyo demand zone supply zone reaction kas hadduu jabiyo demand zone hadda suuqa waxaa la wareegay automatically waxaa la wareegay supply zone la wareegay oo hadda maxaa rajeynaa expectation order flow oo lagu qabtay who's in control plus liquidity waa the only concept suuqa ugu baahan tahay kama hadlayo demand and supply marka hadda maxaa rajeynaa hadda waxaa rajeynaa inuu demand zone kan uu holding gareeyo holding markaan dhahayo waxaan ka wadaa inaan la jabinin in control demand zone kan maxaa ka rabaa kaliya small reaction ha dhiibo reaction ha dhiibo ala sii jabiyo hadda maxaa ku socnaa supply zone ku socnaa supply zone waxaa la marka la imaado in laga laabto oo haddana hoos soo socdo laakiin hadda aragto haddana supply zone reaction sameeyo marka the concept waa arduna chartska the concept of who's in control waxa ka wadnaa supply zone control ka haayo maxaa cadeynaya the first sign su'aalahan aniga waxaa rabaa the first sign of control kan la wareegay the first sign wax kasta bilaa waleeyeen maxaa yeelay suuqan lagama yaabo inuu forever iska socdo demand zone kan lagama yaabo inuu forever ku socdo demand zone ka maalin uu dhamaad doona oo supply zone suuqan soo gal karo marka maxaa cadeynaya the first sign of inuu suuqan supply zone soo gashay waxaa cadeynaya okay demand zone waa laga laabtay supply zone waa la jabi meesha supply zone ay tahay hoostan maxay tahay demand zone ay tahay hoosta demand zone ay tahay waxaa rabaa inaa ku tuso the first sign walwalka ugu horeeyo aniga ma rabo meesha hadday demand zone tahay tusaalahaan meesha waa demand zone kan ma rabo inuu demand zone kan haddii saan lagu soo jibiyo taas caddeyn uma ahan inay suuqan supply zone la wareegto that's not the first sign ma rabo caddeyntaas ma rabo aniga caddeynteeda waxaa rabaa demand zone kan reaction had galiyo celi demand zone kan haddii lagu soo jibiyo very momentum haddii lagu soo jibiyo wali ma dhihi karo suuqan supply zone la wareegay supply zone si uu la wareego waxaa rabaa demand zone kan inuu reaction dhiibo reaction failure that is the first sign waa sign ugu hore inuu supply zone oo la wareegay laga yaabaa bari markuu soo laabto in meeshan sell laga siiyo mise in meeshan liquidity loo isticmaalo oo xaggaas sell ugu gashid waa probability taas waxay ku xiran tahay analyze-ka ay ku xiran tahay marka hal mar chartigan soo diyaariyay aan tuso hadda meeshan maxaa ku aragnay sidoo kale waa ina ishu lagu haayaa supply zone way kala yihiin hal mar iga supply zone way kala yihiin supply zone high time frame maxaa ka wadaa high time frame maxaa ka wadaa supply zone oo one day camal supply zone one day wuxuu ka awood badan yahay maya supply zone one day wuxuu ka awood badan yahay supply zone 4 hour sidoo kale supply zone 4 hour wuxuu ka awood badan yahay supply zone 15 minutes saasay u kala awood badan yihiin maalin kasta ku celceliya time frame ku ka weyn yahay wuu ka awood badan yahay marka haddii aragti supply zone one day lagu jabinayo reaction break
demand zone automatically wala wareeg maxaa yeelay supply zone 1 day la jibiyay laakiin waxa arki doontaa supply zone 15 minutes in lagu jibiyay haddana isla markaa waxa la wareegay demand zone marka time frame hoose waxa ka wadaa 1 day waxa ka wadaa 1 minute iyo 1 minute iyo 15 minutes waxa arki doontaa kala wareega inuu badanaa badan doono kala wareega waxa ka wadaa mar demand zone la wareegay mar waxa la wareegay maxaa la lahaa supply zone 1 day gudaheeda hal session gudaheeda waxa arki doontaa inay kala wareegeen 100 jeer inay kala wareegeen taas waa problem uu leeyahay lower time frame laakiin higher time frame waxa arki doontaa hadduu hal mar demand zone la wareego wax badan oo haysan doonaa okay waa jahwareerka waxa ka bixi doonaa markaan charts ka aadno hadda sawirkan aan soo diyaariyay sawirkan waa sidoo kale CBB sawirkan ka arki doontaa kan waa automatic waa high time frame waa 1 day kan waa 1 day sidoo kale anada 1 day xaggaas noo yaalaa labada 1 day arwa in isticmaalo suuqan xaggan ka soo baxay supply zone waa la yimaaday waa laga laabtay reaction oo dhibay kadib waa la jibiyay still demand zone is control haddana anada supply zone lagu yimaaday waa laga soo laabtay again ma laga soo laabtay laabashada ani marabo 50 jeer ka soo laabtay ilaahay 100 jeer ka soo laabtay laakiin aniga waxa rabaa laabashadan inuu ii jibiyo demand zone laakiin hadda arti 100 jeer in laga soo laabtay taas cadaan uma ahan in la wareegay cadaan uma ahan cadaan rasmi waxa rabaa inuu meel weyn jibiyo dada waxa arki doontaa isku qaldaan supply zone 100 jeer laga soo laabtay suuq waxa maamula supply zone no supply zone waxa rabaa inuu jibiyo demand zone si uu noqdo waa control hadda waxa arkaysaa supply zone laba jeer lagu taabtay walina uu jibil asin yahay demand zone kan maxaa yeelay wali suuqa demand zone maamula okay hadda waxa u jeedaa asigii laba jeer lagu taabtay in one move lagu jibiyay taas waxa cadeynay still demand zone is control buyga si wada buyga qaado again supply zone reaction laga dhibay waa la jibiyay wali suuqa demand zone maamula haddana waa la soo laabtay again waa u jeedaa again demand zone wala xushmeynaya wali hal demand zone lama taaban waa u jeedaa 1 2 3 4 5 no demand zone wax demand zone lagu taabto ma jirto hadda laakiin waxaan gaarnay high time frame gaarnay mar qalanka iga tirtir charts marka aadna ku fahmi doontiin hal mar qalankan iga tirtir hadda waxa lagu yimaaday supply zone high time frame lagu yimaaday supply zone high time frame lagu yimaaday taas micnaheedu maahan in meeshan sel uu galay maahan iyada lagu joogo supply zone high time frame lagu joogo wali suuqa ani maamulku waxa yahay demand zone hatta xagee la jooga supply zone la jooga laakiin wali maamulku waxa yahay demand zone yahay maxaa yeelay no demand zone xagga maxaa dhacay demand zone lagu imaaday waa laga laabtay wali demand zone maamulaya waa ina maskaxda gashataa suuqa inuu sii socon karo maskaxda gasho ilaa aad ka aragtid supply demand zone in lagu jibiyo hadda maxaa dhacay reaction failure that is the first sign supply zone inuu suuqa la wareego waa first sign ugu hore sidoo kale meesha maxaa ka dhacay george ka dhacay george entry kuma qaato kaliya wuxuu iga saacidaa inuu high time frame inuu suuqan jiha bedel sameeyay inuu expectation order flow isbedelay inuu who's control isbedeshay inaan reversal trend oo trending inuu dhamaaday waa waxyaabaha george loo isticmaalo waxa arki doontaa george in si qalad laga isticmaalay trade kasta ku sameeyo george in si laga qaato no george wuxuu qabtaa 3 shaqo qabtaa hadda qorahan mar hadda qofkii qoranayo george 3 shaqo qabtaa iyo wixii ka badan inta xasuusto one waa in expectation order flow oo fail ku sameeyo fail number 2 wuxuu who's in control oo jihada kala wareejiya suuq demand zone maamulaya supply zone oo gacanta u galiya george waa another sidoo kale trend u socday high u socday wuxuu ku tusi doonaa the first sign inuu trendian uu gali doono tusaalahan waxa dhacay move aan dhacay impulse correction impulse markan joogo 1 2 3 saasan la jiray laakiin hadda waxa dhacna daqiiq markuu dhaco nasiinaas george the first sign waa saddex bis isticmaala laakiin trend la gala iyo waxaas no hadda amariga titir okay demand zone
reaction waa laga laabtay marka maxaa ku soo haray waxaa ku soo haray demand zone kan waa ereyga CBB meeshan ka soo gaabiyo waa labadan demand zone 1 2 3 saddexdan demand zone waa ereyga loo yaqaano CBB catalyst for pullback waxaan ka wadaa adiga suuqa u jeeda inuu supply zone maamul ku hayo Soomaaliyan waa Soomaali maahan smart money dhan dadka smart money wax dhan isku dhaxaysan waxa waaye su'aalahan suuqa markuu xagga marayo suuqa markuu xagga marayo supply zone waa tusaalahan waa 15 minute waay supply zone 15 minute suuqa haay kanna waa tusaalahan waa 4 hour adiga waxa leedahay supply zone 15 minute waxa igama gal 4 hour demand zone la jeeda baya meeshan la qaata baya qaadan maya meeshan baya uu qaadan suuqan waa u jeeda inuu clear ku socdo downtrend inuu ku socdo sidoo kale supply zone la xushmeenayo kan wuxuu isticmaalaa kaliya CBB waxa ka wada pullback u isticmaal inuu ka saacido the next entry-ga kale kow haddii saan loo taabto laga laabto entry-dan waa entry-da ugu fiican entry-ga ugu jecel entry waxa ka mid ah tusaalahan laba entry jiro waa isku laba doona maanta waa laba entry jiro qalinkan tirtirna hal mar isugu Philip markaan ka hadlaya laba Philip jiro Philip tusaalahan hadda markuu suuqa xagan joogo suuqa si abay u qata Philip karaadina muxuu ahaa in supply zone laga soo laabto kadib lagu jabiyo buy that's what the first Philip ka wuxuu isticmaalay time frame yar 4 hour aan jooga 4 hour aan jooga 15 minutes supply zone wuxuu isticmaalay Philip 15 supply zone hadda suuqa waxa la wareegay demand zone that is the first entry-ga maxaa ka wanaagsan another entry-ga waxaa ka wanaagsan adigoo u isticmaala CBB 4 hour ka waran qof 15 minutes CBB u isticmaalay qof 4 hour CBB u isticmaalay isku mid maahan ka waran 4 hour ka hadda u isticmaal CBB catalyst for pullback CBB waxa soo gaabiyay catalyst for pullback 4 hour kan reaction marka laga sameeyo lagu jabiyo entry-dan waa the first entry ugu fiican waay maxaa 1 suuqan supply zone maamulaysa waa number 1 number 2 expectation order flow muxuu cadeynaya suuqa inuu high low uu hoos ku socdo waa number 2 number 3 waxaan dhihi karnaa demand zone 4 hour fill groway adigoo saddexdaas haysto entry-ga marka gashi waa high probability waa qasaari kartaa maxaa yeelay forex waa ma jiro trade 100% ah laakiin waa high probability kaliya waxa isku dhaaf waxa waaye high probability iyo low probability marka high probability qaad iyo low probability marka qaad marka sawirkan waa waxa idin soo dhigi doonaa groupka master class ka idin soo dhigi doonaa oo isticmaal ku noqdo reference ku noqdo hal mar qalinka iga tir tusaale waxa isku tusi doonaa أنا راح أعطينا tusaalahan ku soo gogoynayna hosting control supply zone meel control ka wadatii okay hal mar meeshan waxaan iska wiigan waa liquidity graph maalinka sax ilaaliya wiigan anay ma xisaabsano wiig ma xisaabsano okay suuq markuu xaga maray iswedii aawe suuqan waxa u jeedaa inuu demand zone markuu meelaha maray demand zone maamulay si aan u dhaho supply zone maamulay waxa rabaa the first demand zone aawe waa kan hada first demand zone this is the first demand zone maxaa la sameeyay reaction failure who fail growing okay what is the supply zone midaan ka ilaawo oo mid muhiim ah ka ilaaway kaliya maro ani fail maro mid muhiim ah ka ilaaway hal mar suuq si u dhaho
salahan suuqan demand zone supply zone ku socday si aan u dhaho demand zone la wareegay kaliya marabo in reaction laga dhigo laga laabto la jibi marabo sidoo kale waxa rabo in la ii xishmeeyo demand zone kan lagu yimaado laga laabto waa ka ilaaw markaad sharxa waa ka ilaaw waa meeshan waa saddex waxyaabood isku qabtay kow suuqan waxa maamulaya supply zone lagu imaaday reaction laga dhigo number 1 waa reaction qoro number 1 controlka si lagu wareego waa reaction number 2 maxaa waaye break in lagu jibiyo in break lagu sameeyo waa number 2 number 3 maxaa waaye respect maxaa ka wadaa in la soo laabto demand zone break sameeyo in la xushmeeyo laakiin ka waran hadduu kaliya ii jibi mara saddexda marka isku qaadatay waa high probability okay waan kii lahayd markaan sharxayo sorry okay hadda meesha marka joogno reaction waa fiiqan reaction xataa way kaliyihiin ka waran reaction oo body closure iyo reaction fiiqa waxa fiican reaction ka isla marka laga laab ma aragtay demand zone lagu yimaado isla marka uu laabto laakiin war hadduu jirku xirma lahaa still is reaction jirka body waxaan ka wadaa hadduu body ku xirma lahaa hal mar candle meeshan candle kan hadduu saan u xirma lahaa still waa dhihi karaa waa reaction laakiin reactionadu way kala fiican yihiin reaction fiiqan wuxuu cadeynaa in meeshan buyers soo galeen maxaa yeelay every demand zone buyers aa jooga every supply zone sellers aa jooga marka mar allaal marka insaas loo celiyay waxa cadeynaa in oo gacan bir lagu hayo okay waxa lagu sameeyay break lagu sameeyay where is the break xagu ku dhacay waa la jibiyay hadda mar allaal markii laga jibo waxa rabaa in supply zone la ixtiraamaan rabaa supply zone ki waa dhihi karaa candle-ka the first candle waa white candle buy ah saar kartaa waa range supply zone kan waxa cadeena in lagu ixtiraamay maxaa yeelay break meesha ku dhacay waa kana this is the break of structure break meesha ku dhacay waa lagu ixtiraamay basically waa lagu soo laabtay hadda waxa cadeynayna suuqan demand zone ku socday supply zone officially controlka la wareegay anada maxaa rabaa in demand zone la ii jijimiyaa rabaa supply zone la ii ixtiraamo waxa saaranay the next demand zone hadda fiirisi kan waa dhihi kartaa okay fiqidan is always shit in weeks okay again another reaction احترام ولا اي احترام another reaction ولا اي احترام وحاسبينه هذا where is the next demand zone and كرا reaction في قان demand zone ka xarwa inuu laabto oo break isma marka laba mid jirto sidee maxaan dhahay hadduu demand zone kan hadduu jibiyo supply zone kan automatically expectation order flow lagu fill garo push in control la jihada waa laga wareega demand zone la wareegay laakiin mar allaal marka arag supply zone lagu malaaban kan lama taaban okay haddana waxa dhacay another break dhacay another break and xagee sababay this buy to sell week supply zone waxa arkaysaa inuu awood said ku leeyahay oo demand zone ka hal aayad uu suuqan qaalilaysan yahay again fiqan another demand zone haddana demand zone ka maxaa rabaa reaction hadiibo aniga marabo ka waran hadduu iska imaado lagu jibiyo no demand zone si uu demand zone u noqdo waa sorry meeshan demand zone ka tagay this demand zone demand zone kasta reaction dhiga qofkii ku dhaho haddii demand zone ka la iska soo tago that's not demand zone oo jeeda demand zone ka waa lagu imaaday waa laga laabtay xagee ka laabtay fiqidan waa lagu dhiti waa u jeeda every demand zone reaction ay dhibayaan haddana awood uma lahan reaction kooda awood uma lahan every reaction awood uma lahan inay supply zone jabiyaan marka taas waxa cadeynaa in suuqan uu awood said ku leeyahay waliba awood yar maahan
adii maxaa laga rabaa awoodda si aad u sheegtid kaliya aan waxa ugu filan hal xaba ugu filan hal xaba oo in respect lagu jibiyo kadib lagu laabto halka xaba ugu filan inaan dhaho supply zone suuq maamulay laakiin 1 2 3 afar jeer kale dhacay in supply zone la jibiyo la siiyay tani waa very powerful ma baahan inaad ka shilaysid trade kan gal qaado supply zone qaado laakiin haddaad mar allaal markaa dhahday buy ogala waa markaad stop loss gacanta lagu hayo kuraysid maanta iska tirtiraa marka kaliya ani marwa control kan kaliya marwa 15 minutes iyo 4 hour every time frame entry qaadayso waxa rabaa inaad control ka heshid tusaale ahaan waxaa jiri doono the lower the time frame marka aragtid more waxa arki doontaa in supply zone suuq la wareegay demand zone la wareegay supply zone la wareegay demand zone la wareegay laakiin muhiimadu waxa high time frame ana high time frame hadda 15 minutes isticmaalayo waxa cadeynaysa suuqa inuu awood leeyahay hadda markaan kale waxa isweydiinay أنا وحارة إن حشمت دان لأي وضع ربع مركا انتري خاضو انتري حقيقة خطأ وان إيه هذا أنا سبلايزون وأروح حشمنا نو سبلايزون اللي تعودون سبلايزون لو مدوا دون حتى أوكي ما لها نقول هاد كانوا كل فيري كانوا كله وجد supply zone بنا أزدبرع ناقص supply zone أزدبرع أنت اللي كخال مركها كلها سوين لي أور supply zone ولا حشمنا supply zone ولا حشمنا 1 minute تدو كلو حاروا 1 minute لنا كأركارا 1 minute لكن 1 minute وحارد ضد الله في الكل تكراب لي supply zone 1 minute سكو حاجة موجودة تدو كلو حاروا أنا أنت اللي كخال كرت هذا ماشان حالة سيل وقال كنت ماشي أنا سيل هذه استمرار رأسي مرة إني سبلايزون إلا يجي مرة سبلايزون أنا وإلى شنة وحالها protected سبلايزون مش protected هاي هدو خال جبيو هدو جبيو محايل رياكشن كوحة عدانة هدو جبيو إن ديمان زون لوريجا عدانة مركب مرة رياكشن كهديجو رياكشن كسحارة إنه أنا ديمان زون إيه ماذا أنا رياكشن أنا ديمان زون رياكشن سوق أنت سوق على سوق أنا واحد دجالة سبلاي زون ديمان زون بس هاد دجالة واحد كله اسمها أوكي انتري مالها وكراس انتري 1 من الروا أنا waxaan dhan waa candle-kan dhan waa supply zone demand zone this demand zone clear demand zone yes demand zone dan fiiri demand zone reaction dhibayaan laakiin reaction kooda ma aha reaction supply zone jibinaya ma aha every demand zone is reacting laakiin reactionadooda ma aha reaction zone reaction demand zone supply zone jibinaya ma aha marka adi okay tradeedina waa ardoona maanta ka hadlayaan entry laakiin hadda maxaa entry noo ده فيريسيت this whole area is supply zone area عندهم حلها range supply zone من جدا حشمد وحكست والو حشمانه every time frame والو حشمانه supply zone مروا إن إيه في مرة demand zone لكن entry ده محقق تاني entry وحروا time frame وين إلا إيه ماذا سؤالان ما حنده هذا كان وحنا 1 minute graph كان هو 15 minutes مش 4 hour وحده 15 minute reaction respect وحو كأود بدنها reaction كان هذا قفكي ماشان سيل كسو قال دب ملها قفكي ماشان سيل كسو قاتي سيلك قفكي كسو قاتي لكن سيلك مع سي بي بي استعمل سي بي بي استعمل 1 minute demand zone استعمل سي بي بي هان تلست في بول باك
kaas waxaa ka fiican ninkii high time frame u isticmaala CBB ka fiican hadda fiiri high time frame ka marka la imaado adiga laga maro inaad meelahan buy si dhigata maro qofkii 15 minutes ku tara gareeyo meelahaas buy si dhigan buy kaliya waxaa dhigi kartaa okay suuqa hadda demand zone imaade si aan buy u galo kaliya maxaa sameyn karaa waxaa sameynaa where is the last supply zone okay this is the last supply zone suuqan si ay buy u qaad waa only one option supply zone lagu imaado halaga laabto hala jibiyo enter your buy here buy gan qaado that's buy sidee sel u qaadi karaa sel waxa u qaadi karaa reaction kan markuu laabto supply zone ka laabto mise meesha ka soo laabto ha ii jibiyo asiga ha ii jibiyo wa fahnoomena meesha ha ii jibiyo only those two option ku baran mar allaal marka lagu imaado waxa hadda laba option ay baran option ka koowaad oo in demand zone kas la imaado supply zone la imaado la iga laabto kadib buy u galo buygaas ka soo horjeeda order flow expectation order flow ka soo horjeeda maxaa dhahnay qalin kan maxaa su'aalaha u soo laabo doona hal mar qalin kan duusa socto marka waxaa dhahnay this is only laakiin maxaa dhahnay expectation order flow marka lagu qabto who's in control marka lagu qabto liquidity waa marka uu fiican shaqeynaysa strategiyan hadda expectation order flow muxuu sheegaa order flow gana muxuu sheegaa inuu suuqan hoos u socdo oo higher look socdana noo sheegaa adiga dib ma lahan trade reversal kan wuxuu noqonaa trade reversal oo ka soo horjeeda expectation order flow hadduu ku dhaco hadduu saan ku dhacdo waa trade ka soo horjeeda expectation order flow laakiin waxaa haystaa one criteria haystaa who's in control waa la wareegi laakiin expectation order flow wali waa hoos hadda waa arkeena marka waxaan dhaca arkeena okay maxaa dhacay reaction break marka maxaa dhacay meeshaan oo kale waa trade ugu fiican oo qaadan kara meelahan oo kale waa the best trade ku sameeyay trend sare reaction break ku sameeyay waa the best probability trade sidoo kale fiiri mar allaal marka lagu qabto liquidity waxyaabahan marka isku qabatid waa marka heli doonto high probability yoo ay taabtiin وجد قفكي ماشي سلك سوق لها قبلس 2.5 وراح اسالها maxaa yeelay kow expectation order flow muxuu dhahay expectation order flow muxuu dhahay suuqa inuu hoos u socdo noo sheegay 2 supply zone is in heavy control maxaa yeelay demand zone waa loo dhawaalacsan yahay 3 liquidity waa helay saddexda marka la isku qabto waa the best trade ugu fiican qaadanaysa sidoo kale trade kan waa continue waxa la trade kan oo waxa la continuation trade laga baxo kaliya waxa fiirisa lacagaha half la ka xirxiro illa lagu soo laabto half la lacagaha xirxiro continuation trade wali soo socdoona waxa sugaya the next demand zone meelaha waxa ku jiri doona 4 hour demand zone waxa ku jiri doona hal mar fiirinayna demand zone meelaha ku jiro okay gadaal oo laabanay okay meelaha waxa ku jiro demand zone ku jiro is clear one demand zone okay another demand zone waa kana marka labada demand zone hadana waxa isticmaala another CBB oo isticmaala trade continuation waliga lama xiro waa la iska haystaa inta noloshaada ka dhiman iska hayso oo marka kula reversal iska dhaaf reversal hada tahay qof oo 10 r ku faraxsan dhib ma lahan laakiin waxa arki doontaa inaad 50 r iyo 30 r marka lagu dhahay qofkaas
وقف continuation وقف قاتل reversal قاتل واي لو ده ديمان زون فينا متكي أدق لو the fast target ده حكي لنا ده 1 من علي ولا 1 من علي target كوه هراي حاجة أنا كوه هذه حاجة مركل هو قال معناه هذا ما أهل العكس هلبح معهن حاجة مركل هو قال معناه هذا ما أهل العكس هلبح معناه هذا وحاول العكتان فإذا هاف لبح أنت كلا حدوك وصل على ستوب لوس أنت كلا لكن بدل ما حب أنت تريدين أنا كل كونتينوش إنه سيش عدونا أنا أبدا أنت هذا وجد وحاني ماني أنا ديمان زون أنا ماني ديمان زون كم حرشت معنا أنا سي بي بي رياكشن دي بقى هو سؤال يقول له تنا دي من الهواء من 15 من دقيقة وحنا سوق بيننا أوكي سبلايز نسكرها له ولا بتي هو على سوق حشمينه إيري again ديمان زون وجبيل أسيها ماشي هاد محجوجا 4 هاور ديمان زون أجوجا ديمان زون كان سيانو ده ديمان زون كان أبوه ليه سيانو ده محاه the first criteria وحاه إنه سبلايز زون تكو كده بسولا بتو وجبيو هدو جبيو واي ما أهان ديمان زون هل مروحنا إيجا تتر سيأو أرخ ماشي إلا جبيو إن كلاتو أوكي سبلايز زون سوق مركو أنت معنا ديس سبلايز زون كان الكودن بي سبلايز زون والغا سولابتي هل مر إيجر بيسمي رياكشن وسمي رياكشن كان محاروا ولي ديمان زون راجونا يس ديمان زون راجونا لكن ساودا ديمان زون أولو ليه رياكشن كان محاروا إنه سبلايز زون جبيا روا أوكي ولي وسكو دايا وكل لابنا هدو جبيو أوتوماتيك ديمان زون لوري هدو سولابتنا وسيدا أوكي ما كان الفيري كان الله عندنا أبود تحت وحوراتي ماشي هو سبلايز زون أدك أبود تحت ويرتها محايرة سبلايز زون حوليها إمي جبيت درست أنا ديمان زون أدك وطلع فيري هدنا ماشي أنا محادا أنا هبيه المركة كان لين سوينج هاي سوينج لو أنا هدو جبيو واي هايجاس وحنا غضنا ويك أسيجا جبيت دونا أنت ريكوردينج أنت سكتبونا لبس يلا قوانا